hanti burbur u geystay waxaan isku daynay inaan la kulanno iyagu waxay lahaayeen guddi ka kooban ilaa 5 qofood oo isla markaas Amazon ah oo ciidamada AU ah oo gudoomiye u yahay Cornel Gile oo ciidamada Djibouti ka tirsan waxaan isku daynay in badan inaan la kulanno oo aan aragno iyagii markaan u geynay warqad ka socoto keeni waxayna dhaheen waa bal annaga isu arki doono dib aan war ugu soo celinayna ilaa with the 3 times 3 jeer ayaan u tagnay 3 jeerna ilaa up to now wax war ay nagu soo celshay ma jiraan markaan walbo aan la hadno aniga hadda kula hadlaayo waan u tagay waxaan ku yiri waxaan ka mid nahay guddigaas ilaa haddana wax war ay ka hayna ma jirto waxaan nahay guddi qaran oo loo magacaabay dhibaatooyinka iyo dhibaatada u geysanaysan dadka ummadda Soomaaliyeed waxay u yiraahdeen bal anagu waxaan u nimid inaan idinka ilaalino laakiin uma aan imaan in anaga nagdaaweeyo markii aan ku yiri sababay arrintii waxay igu yiraahdeen waxaa jirto anaga idinka mission agreement oo aan samaysanay 2007 oo saxiixay ambassador laqayo Allah naxariisto ambassador Ethiopia oo markaas uu fadhiyay 2007 mission agreement-kii waxa ku qoran markii aan fiirinay duruucdiisii markaas soo qabto waxa ku qoran qof walba ee ciidamada AU-ga ee u jooga Soomaaliya nabad ilaalinta haddii ay dhibaato u geystaan waxba looma raacan karo ayaa ku qoran mission agreement-kiga weliba waa qiraal oo iyagu macnaha wax ay diidan yihiin ma jirto ilaa hadda waa qiraal sababtoo tahay waxaa ku jiro mid kastaba warqad ay ku cadeynayaan inay iyaga dhibaatada personal ay u geysteen